السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم داوديال كسو دhowaada barnaamijkeena Hackis ee bixi jiray bisha barakeysanay Ramadan oo aad ka daawataan barteena YouTube-ka Hackis Pro channel. barnaamijka ay loo intaawada inaad subscribe saarto, video like saarto, sidoo kale share garayso. maalintii labaad ayuu bixi doonaa barnaamijku. tartamaha koowaad ee barnaamijka ka qayb qaadanaya baan u yeedhayaa Dhidar Xeebeed haddii uu fadhiyaa soo kaco shacabkana loo garaa. السلام عليكم Dhidar Xeebeed waan ku soo dhaweynayaa halka aad magaalada Burco kaga nooshahay hadii aad gobol kale ka timi iyo waxaad ka shaqeyso. horta calaykum asalaam warahmatullaahi wabarakaatuh. barnaamijka aad iyo aad baan ugu dhawahay gobolkan ka yimaada sheego gobolna ma ahay waxaan ka yimid la dhaalo yaado gabdhi halkaas aan ku noolaa kana shaqeyn jiray ma fayro weyn oo la dhaaho ku dhacay daanyero oo ku magac dheer wanaanaysteeda adigna Dhidar Xeebeed baa lagu dhahay. aniga Dhidar Xeebeed baa la dhahay inkastoo inaan sooyinku iska farbadiin Dhidar Xeebeedna la dhaaho qofna burdaaf kulli way farbadiin ninna badan baa tuway waxaad xasuunataa barnaamijka su'aalood baan ku weydiinaya shanta haddii aad garato waxaad heli doontaa dhariido dhameystiran. afar ka mid haddii aad garato shanaad garan weydaan afar dhameystiran baad heli doontaa. laba jeer dadweynaha ku caawin doona laba jeerna meel laba ka tuur doona. koolkina meel garaa كل متر ملكني كل سؤال شكوبات أديو كمبيوتر كوريا لي بسم الله كوب لابي سؤال شكوبات وحي كورانيس مقالة أديك شكان سجا إسكحدي و مقالة أديك شكان سجا إسكحدي و با مقالة جروه تا مقالة مقدشو شا مقالة قالكعي ح مقالة هرقيس su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo kolley sidaan u badinayo waa gaalkacyeelad gaalkacyo magaalada adeega shukaansiga iska xidhay waa ba magaalada Garowe ta magaalada Muqdisho ja magaalada Gaalkacyo xa magaalada Hargeysa gaalkacyo jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadayeegi doonaa. magaalada adeega shukaansiga iska xidhay waa Joe Gaalkacyo ayuu ku adkaystay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa halka ay habluhu ku been waxay reer Burco u yaqaanaan ba WhatsApp-ka ta TikTok-ta ja Instagram-ka ها فيسبوك. سؤال لبعض يو حلو ملايا تهجيت كا تيك توك halka ay hablaha ku been waxay reer Burco yaqaanaan ba WhatsApp-ka ta TikTok-ta ja Instagram-ka ha Facebook geedka TikTok-ta waa ku arkaysan TikTok-tan ku eega. jawaab su-aashiisa labaad daawadayaal halka ay habluhu ku been ta oo TikTok baad ku adkaystay. jawaabtaas ayaynu daawadayaal wadayeegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha saddexaad Dhidar Xeebeed waxay ku odhanaysaa garoomada doogga magaalooyinka ku dhex yaala ninkii marakaneecada u yaqaanay waxa waa garoomada doogga ee magaalada ku dhex yaala ninkii marakaneecada u yaqaanay waxa waa ba Cabdixakiin Garande ta Cabdibaas ja Naasir Haarun ha midnaba. garoomada doogga ee magaalooyinka ku dhex yaala ninka marakaneecada u yaqaanay waxa waa ba Cabdixakiin Garande ta Cabdibaasi ja Naasir Haarun ha midnaba. Cabdibaasi ku adkaysanay saasha saddexaad marse aad iskana fiirso laba jeer dadweynaha laba jeer min laba jaanisyo badan baa ku yaala. warwareeg ma leeyahay Cabdibaaskaasaan ku adkaysanay ta oo Cabdibaas way ninka garoomada doogga ee magaalooyinka ku dhex yaala u yaqaanay marakaneecada waxa uu ahaa ta Cabdibaas buu ku adkaystay dukaankaaga u dambeeyay.
jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. liidar xeebeed su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa laxanka ugu badan ee heesaha waxaa haday ba Chinese, ta Japanese, ja Soomaali, ha Hindi. su-aasha haddaan isku dayo dhowrka hadalaa sheegtay waxa ugu basar xun qolyaha xanuunka soo gudbiyey kuwaasaan ku adkaysanaya inay yihiin China. way laxanka ugu badan ee heesaa waxaa haday ba China, ta Japan, ja Soomaali, ha Hindi. Chinese-kaasaan ku adkaysanaya ba China kaankaaga u dambeeya kii ugu dambeeyey. jawaabta su-aashaadii afraad meel xasaasiya baad maraysaa. inaad laba kaa tuuro iyo inaad dadweynaha laba jeer kaashito labadaba jaanis badaas xaga ku kacaba ku dhowahay laakiin haddana waa lu qaadan lahaa yeelka waan wadaya oo ku adkaysanaya ba oo jeenaabad ku adkaysanaya. jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa. laxanka ugu badan ee heesaa waxaa haday ba China. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay. waa Soomaalida. aad baan saxabka loo garaaco. aad baad umahadsantahay. tartamaha labaad baan u yeedhayaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Mr. Burhaan. haddii uu fadhiyaa soo kaco saxabkana loo garaaco. heesaha ugu beenta badani waa ba dhulkeena nimcaa fadhida, ta kala guurki maahay kala gurasha weeyaan, ja mar kale iyo midnimo, ha midnaba. waja oo mar kale iyo midnimo. heesaha ugu beenta badani waa ba dhulkeena nimcaa fadhida, ta kala guurki maahay kala gurasha weeyaan, ja mar kale iyo midnimo, ha midnaba. laba jeer dadweynaha ma leeyahay laba jeer dadweynaha iyo laba jeer aan laba kaato ba oo dhulkeena nimcaa fadhida baad ku adkaysanaysaa. heesaha ugu beenta badani waa ba dhulkeena nimcaa fadhida, ta kala guurki maahay kala gurasha weeyaan, ja mar kale iyo midnimo, ha midnaba. ba oo dhulkeena nimcaa fadhida. jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa. heesaha ugu beenta badan dhulkeena nimcaa fadhida. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aashaada labaad Burhaan waxay ku odhanaysaa gobolka lagaga hadlo afka loo yaqaano maakhirigu waa ba gobolka Awdal, ta gobolka Sanaag, ja gobolka Sool, ha gobolka Daadmar. maakhiriga afarta gobol ii sheeg. ba gobolka Awdal, ta gobolka Sanaag, ja gobolka Sool, ha gobolka Daadmar. Awdal afka maakhiri galbeedka weeye. Awdal nimankaas maakhiriyada inaga horeeyay galbeedka. way su-aasha labaad gobolka lagaga hadlo afka loo yaqaano maakhiri ba oo gobolka Awdal ba gobolka Awdal. jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay. waa gobolka Sanaag. Burhaan aad baad u mahadsantahay. tartamaha saddexaad ee barnaamijkan u yeedhayaa daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan barteena youtube-ka ee Hakis Pro Channel. waraabe hargabay ninka la yidhaahdo haddii uu fadhiyaa soo kaco saxabkana loo garaaco. asalaamu calaykum waraabe hargabay. wacalaykum assalaam Mr. Hakis. waxaan kuusoo dhawanayaa barnaamijka Hakis. haddii aad gobolka Togdheer ku noolayd iyo haddii aad arday ka tahay iyo haddii aad ka shaqayso taariikh nololeedkaaga oo kooban. horta magacaygu waa waraabe hargabay. aniga iyo macawisteydaba waxaan ka soo kacnaa xaafadda. maxaad naga eegaysaa? gobolka Togdheerna weligay waan ka buuxay. reer Togdheer baa waaye waxda xasuus nin magac maxaa lagu bixi? magaca waxaa laygu bixiyey xeradhiigta berigaan ka shaqayn jiray ayaan dadkan ugu dambeeyay lafa iyo waxa soo guraan ahaa. dadkaan iyo waraabaha isku xilli iman jirin markaas la bixiyay magaca. ilaahay naga kaayo. su-aashaada koobaad barnaamijkan kuu bilaabaya waxay xasuunaataa barnaamijka 5 su'aalood baan ku weydiinaya. 5 haddii aad 5 garato dhar iido dhammaystiran baad helaysaa. haddii aad 4 ka mid ah garato shanaad garan weydana 4 dhammaystiran baad helaysaa.
laba jeer dadweynaha ku caawin doona laba jeerna computer korea la ku caawin doona min laban ka tuur aniga isweyna ila xidhadii baan iida u baahnay marka haddaan imsa ku guuleysanaysa shan yes wad qarqarsan tahay su-aasha koobaad waan kuu bilaabayaa computerka korea la adeegaysa su-aasha koobaad waxay ku odhanaysaa waddanka ay salaadiintiisa iyo siyaasiyiintiisa u siman yihiin saaxadda siyaasaddu waa waddanka ay salaadiintiisa iyo siyaasiyiintiisa u siman yihiin saaxadda siyaasadda waa ba puntland ta somalilan ja dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xa waddanka soomaaliya su-aashaasi haddaan isku dayo iigu celiba waddanka ay salaadiintiisa iyo siyaasiyiintiisa u siman yihiin saaxadda siyaasaddu waa ba puntland ta somalilan ja dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xa soomaaliya waa somalilan weyn somalilan waraaba hergooba aad ka fiirso kuwaasa aad hadii jeer u dhurmo waa somalilan weyn somalilan waad ku adkaysanaysaa dalka ay salaadiintiisa iyo siyaasiyiintiisa u siman yihiin saaxadda siyaasadda waa ta o somalilan jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaada labaad waraaba hargabay waxay ku leedahay liverpoolsha somalilan gobolka loo yaqaanaa waa liverpoolsha somalilan gobolka loo yaqaanaa waa ba gobolka saaxil ta gobolka salel ja gobolka zayla xa midnaba nin intaad sheegtay kale berberaa ugu yara tun weyne waa saaxilta liverpoolsha somalilan gobolka loo yaqaanaa waa ba saaxil saaxil bal dadweynaha igu dhiibtaa daawadayaal waa markii koowaad aan ii baahno aniga iyo waraaba hargabay su-aasha labaad baanu maraynaa waxay idin leedahay gobolka loo yaqaano liverpoolsha somalilan waa ba gobolka saaxil ta gobolka salel ja gobolka saylac xa midnaba imise qof ayaa le waa ba oo gobolka saaxil imise qof ayaa le waa ta oo gobolka salel imise qof ayaa le waa ja oo gobolka saylac imise qof ayaa le waa xa oo midnaba waraaba hargabay isku soo noqosho kale waxay u codeeyeen dadku ba inka badan 400 qof baa u codeysay ba oo gobolka saaxil yara fishtaan la inaan ku adkaystay heeda waa runtooda aan malayn taasin qaadan jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa gobolka loo yaqaano liverpoolsha somalilan ba oo saaxila jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaada tinigiska may ma dhawey shan baa lagaa doonaya su-aashaada saddexaad waxay ku odhanaysaa hargab xanaaqay waxay reer burco u yaqaanaa hargab xanaaqay waxay reer burco u yaqaanaa ba kuduya ta kaneecada ja covid-19 xa midnaba igu celiba su-aasha hargab xanaaqay waxay reer burco u yaqaanaan ba kuduya ta kaneecada ja covid-19 xa midnaba malaa waa koododiga isaga qoxooda talo laba iga tuur laba ka mid a ayaan kaa tuuri doonaa hargab xanaaqa waxay reer burco u yaqaanaan waxaa isugu kaa soo hadhay ba oo koododiyaha iyo ja oo covid-19 labada covid-19 kaas daaweyn way isagaan filay covid-19 baad ku adkaysanaysaa su-aashii saddexaad baan maraynaa aniyo waraaba hargabay covid-19 baad ku adkaysa jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afraad in yar baa hadhay laba su-aalood kala ku hadhay su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa gobolka aan weli fanku gaadhini waa gobolka aan weli fanku gaadhini waa ba gobolka sanaag ta gobolka sool ja gobolka togdheer xa gobolka saaxil waa gobolkaas sanaag baan u maranayaa xasan aadan baa beri taraa ku maray baa layidhi fanaan berigaasay arkay xasan aadan baa taraa ku maray dabeetana isagoo dhuusa marheeb ku socda markaa oo gobolka ba oo gobolka sanaaga ba oo gobolka sanaaga
gobolkan weli fanku gaadhini waa ba gobolka sanaag ta gobolka sool ja gobolka togdheer xa gobolka saaxil islaamba bari hore sheegtay waa ka gobolka sanaag jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal eegi doonaa jawaabta su-aashu iskoob soo go-aanka ugu dambeeyay su-aashii afraad baad maraysa may wayada jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa gobolkan weli fanku gaadhin ba oo gobolka sanaaga buu ku adkaystay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa gobolka togdheer waraabaha hargabay aad baan kaaga mahadcelinayaa tartamihii afraad baan u yeedhayaa ama ka qayb qaatay afraad daaraadamiye haddii u fadhiyaa soo kaco sacabkana loo garaaco السلام عليكم دار دمية سويج كل بس يدك يقارن. وعليكم السلام. إن تاريخ هذا كمان هديات قبل كتير كنا شهادات قبل كنا كتير واحد كشقة شهادات أرض تاي. يا هالكاد مقالة برعك كناش. وحكي مدرسة كبرعة. حنا كشقة يا موافق أنا. هو السلام. وأي واحد حسنا شن سؤال دون كويتين تونا شن تهدي شن تبقرته. داري ده دمسترن بدرس أفر كم بدأ ديات قرأتوا تشنات قرن ويدنا أفر دمسترن بدرس لبعض شهر تدوينها كعاون تونا لبعض شهرنا كمبيوتر كعاون تونا من لبعض القات تردونا كوبلا بيا كمبيوتر كوريا لايك سايش كوبادو حيكورنا يسا ماستر سويتش سايش كوبادو حيكورنا يسا قبل كا أنت إثيوبيا أنت لقى فانا هو قبل كا أنت إثيوبيا أنت لقى فانا هو با قبل كمراد شيء تا قبل كتقدر جاء قبل كداد مريض حا قبل كساحل لبا كتورة لبا كميدا أيان كاتورة لبا كميدا أيان كاتوري دونا وحسكو سواري با أمرض جاها إيه تا أو تقدر وتا أو تقدر جواب تساشا سايين داود يالوديكي دونا قبل كنت إثيوبيا أنت لقى فانا وا تا أو تقدر جواب تساشنا سيداسي أيي صح كتاي su-aashaada labaad waxay ku odhanaysaa gobolka caanihiisa iyo qaadkiisu isku marka soo dhacaani waa gobolka caanihiisa iyo qaadkiisu ay isku marka soo dhacaani waa ba gobolka sanaag taa gobolka awda ja gobolka togdheer xa gobolka sanaag sool waxaa gobolka soola gobolka caanihiisa iyo qaadkiisu isku marka soo dhacaani waa ba gobolka sanaag taa gobolka awdal ja gobolka togdheer xa gobolka sool jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa xa gobolka sool jawaabta su-aashuna daawadayaal sidaasi ayay qalad ku tahay waa gobolka togdheer aad baad u mahadsan tahay switch sacabka u garaaca tartamihii u dambeeyey barnaamijka ayaan u yeedhi doonaa daawadayaal laflabood haddii u fadhiyaa soo kaco sacabkana loo garaa السلام عليكم شيخ لفلبود عليكم السلام شيخ هدي aad gobolka togdheer ku nooshahay iyo hadii aad meel kale ka timi adaad arday tahay iyo hadii aad gobolka togdheer baa ku nool oy waxaana ka deganay xaafada Samriime si fiican had ka shaqeysaa waxaan ka shaqeeyaa kuuliga sheekh waxaad hasnaataa inaan 5 su'aalood ku weydiin doono 5 haddii aad 5 garato dharida dhameystiran bedelaysa su'aasha afraad haddii aad garato oo tishanaad garan weydo waxaad helaysaa afar dhameystiran laba jeer dadweynaha ku caawin doona laba jeerna kombiyuutarka ku caawin doona mid laba ka tuuri doona dharigaas la boodayo hadda boodaysa dhariga wabiga Somaliland waxa uu maraa ba gobolka sool ta gobolka sanaad ja gobolka awdal xa gobolka togdheer gobolka sool buu maraaniyo gobolka sool ba gobolka sool laflabood saashadii koobaad ba gobolka sool wabiga Somaliland waxa uu maraa ba gobolka sool jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay togdheer buu maraa sacabka u garaaca laflabood aad guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu daawadayaal joognaa weydiinta maantuna waxay noqonaysaa nin rageed waxa ay reer burco u yaqaanaan ba xamaalka ta kuuliga ja kuuga xa benala nin rageed waxa ay reer burco u yaqaanaan ba
kuuliga, ta xamaalka, ja kuuga, xa beenaalaha. markaad daawade ka jawaabayso su-aasha fadlan raaci gobolka aad ku nooshahay iyo lambarkaaga si aanu kuugu cadeyno. weydiintii ka horreysay waxa ay ahayd gobol ganacsatada gobolka ay ku nooleed ka dhacday waxa ay ku nooshay ba gobolka Maroodijeex, ta gobolka Awdal, ja gobolka Togdheer, xa gobolka Sool. waxaa si rasmi uga soo jawaabay oo aan soo raacin gobolka uu isagu joogo Aadan Axmed oo jawaabta su-aashuna waxa ay sax ku ahayd ganacsatada gobolka Togdheer. tan iyo maanta maalinta xigta waxaan idinkaga tegaynaa Ramadaan Kariim.